Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaada Somali News oo aad oga barateen wax waliba oo cusub iyo wax waliba oo muhiim inoo ah. Maanta waxaynu ka hadli doonaa 10 shay oo dhaawac gaarsiin kara kelyahaaga. Haddii aad ku cusub tahay channelkeena, subscribe saar si anaguna dhiirigelin ay noogu noqoto adiguna wax waliba oo cusub aad noola faa'iidaysato. 10 shay ayaynu bilaabaynaa. Marka shayga koowaad, kaadida ha isku celinin. Haddii aad kaadida isku celisid, waxay khatar ku tahay kelyahaaga, waxaana ku beermaya dhagaxaan. Lambar 2, biyo yari uma fiicno kelyaha, waayo kelyaha waa nadiifiye, waxayna u baahan yihiin biyo si sunta looga soo saaro jirka. Lambar 3, sokortu waxay khatar u tahay ama khatar ku tahay jirkeena caafimaad ahaan. Cilmi baaris la sameeyay waxaa lagu ogaaday qofka 2 qaado ka badan sokor isticmaalo in jirkiisa laga helo borotiin, taasna uma fiicno kelyaha. Lambar 4, hilibka waxaa ka buuxda borotiin. Borotiinkaas wuxuu kor u qaadaa qaab dhismeedka jirka, umana roona kelyaha borotiin. Lambar 5, cusbada badan waxay sababtaa dhiig kar iyo in kelyaha dhaawac soo gaaraan. Lambar 6, haddii aad si khaldan u seexatid ama jirkaada oo isku jiro, waxaa macquul ah in kelyaha uu dhaawac gaaro. Fadlan u seexo si saxan, lugahana ha isku geysanine. Lugaha waa inay ku kala baxsan yihiin halkii ay ku laabnaan lahaayeen. Lambar 7, fitamiinada qaarkood haddii uu jirku ku yaraado mise uu ka maqan yahay sida magnesium, vitamin B6, waxaa hoos u dhacaya shaqada kelyaha. Lambar 8, kafeega badan uma fiicna jirku, wuxuu stress ku ridaa kelyaha. Lambar 9, khamriga uma fiicna beerka iyo kelyaha, waayo waxa uu bedelaa qofka dareenkiisa iyo weliba hawshii iyo qaab dhismeedkii jirka. Lambar 10, daawooyinka loo isticmaalo xanuun baabiyaha waxa ay sidaan sun dhaawac gaarsiin karta beerka iyo kelyaha. Sii share garee walaal haddii aad ka heshay channelkeena, subscribe noo saar.